waxaad ii sheegtaa haweenka bal wax iiga sheeg haweenka bal wax iiga sheeg wiilkii yaraa wuxuu yidhi wiil yar baan ahoo 10 jir ah haweenna weli ma aanan guursan dumarna weli ma aanan shukaansan welina lama aanan seexan oo ma aanan jeclaan maxaad iga weydiinaysaa balse haddii aad jeceshahay waxa dadka ay ku sheekaystaan oo meelaha ka maqmaqlay baa wax kaaga sheegayaa markaasuu wuxuu yidhi xajaajow haddaad hesho gabar 10 jir ah xuurulciin baad gacanta ku haysaa buu yidhi gabar 10 jir haddaad hayso xuurulciin ayaad gacanta ku haysaa iyosan kaa fakan waad garata soomaan xuurulciin baad gacanta ku haysaa iyosan kaa fakan 20 jir haddaad heshana muraayad iyo wax dhaldhalaalayo qurux badanood fiiriso indhahaagu qabtaan waad haysataa 30 jir haddaad heshana jannatu naciim janno iyo barwaaqaad gacanta ku dhigtay 40 jir haddaad heshana cad iyo cadiin iyo baruur baad gacanta ku haysaa 50 jir haddaad heshana wiilal iyo gabar waad heshay 60 jir haddaad aragtana 60 jir maxaad iga weydiinay oo faa'iidada kugu jirta maxay tahay buu yidhi danniyaa kugu jirto 70 jir iyo 80 jirna waa cajuuso gabowday isaga fogow ka carar 90 jirna waa shaydaane ka tag 100 jirna waa asxaabul jaxiime isaga carar xajaaj intuu qoslay qosol la dhacay buu wuxuu yidhi dumar teebaa u wanaagsan dumar teebaa u wanaagsan wiilkii yaraa wuxuu yidhi dumar waxaa u wanaagsan buu yidhi tan muuqaalkeeda iyo dhismaheeda jirkeeda quruxdeeda ay ku qanciso carabkeedana uu fasiix yahoo aan lahayn carabgajo iyo shigshig midna aanan ku jirin marka ay ku soo qaabisho soo socoto horteeda aad aragtanu naaska ibtiisa u nuuxnuuxso dhagdhagdhag u dhaho markay sii jeesatana barida ay gadaal u sii ruxanto xajaaj wuxuu ku yidhi waxaad ii sheegtaa buu yidhi qofkii ugu horreeyey ee shicir tiriya adduunyada inta la joogay ii sheeg wiilkii yaraa wuxuu yidhi aadam calayhi salaam buu ahaa ruuxii ugu horreeyey ee shicir tiriyey wuxuuna tiriyey wiilkii qaabiil markii uu dilay walaalkii haabiil uu dilay ayuu nebi aadam isagoo baroor diiqanayo shicirkan tiriyey oo wuxuu yidhi bakat caynii ishaydii way ooysay waxuqa lahaa bukaahaa inay ooysana xaq bay u leedahay wadamcu lcayni isha ilinteeda munhamilun yasiixu way dareeraysaa wax dareeraya weeye famaadii maxaa igu dhacoo laa ajuudu aanan ugu deeqaynin wiilkayga bisakbi damcin ilin inaan u qulquliyo wahaabiilu wiilkii haabiil ahaana tadammanahu dariixu dhulka hoostiisa iga maray ramaa qaabiilu qaabiil waxa uu riday uu ku tuuray dhagax haabiilan akhaahu walaalkiisii haabiil ahaa ayuu dhagax ku dilay waalxaddu fi اthara alwajhu الصabiixu wuxuu yidhi xadkuna sida muuqato wejhigii ifayey wuu aasmay tagayarat ilbilaadu ifkoo dhan wuu isbeddelay tagayarat ilbilaadu ifkoo dhan iyo adduunkoo dhan wuu isbeddelay waman calayhaa iyo wixii ku dul nool fa wajhu اlardi dhulka dushiisa muqbarun kashiixun waa ku isbeddelayoo midabkiisa doorsoomay tabaddala kullu dii طacmin wa lownin mid walboo dhadhan lahaa midab lahaa wuu isbeddelay lifaqdika weynta aan ku waayey yaa sabiixu yaa maliixu kii wanaagsanaa aan jeclaayow ayaa haabiilu haabiilow in taqtul haddaad dishay walaalkaa in tuqtal dheh haabiilow haddii lagu dilay fa innii calayka addahru mukta'ibun qariixu inta aan noolahay waan kuu tiiraanyoonayaa oo adiga ayaan kuu walwalayaa sidaa ayuu nebi aadam ku calaacalay fa anta xayaatu man fi اlardi jamiican inta dunida ku nool noloshooda waa adiga waqad faqaduuka yaa ruuxu wariixu kii carfayoo wanaagsanaayo way ku waayeen wa anta rajiixu qadrin yaa fasiixu waxaa tahay ruux la waayey oo loo baahnaa saliimun bal samiixun bal sabiixun waxaa tahay ruux magangelyo iyo badbaado ku jiray bal cafin badan baad ahayd bal ruux wanaagsan baad ahayd walasta mayitan ma tihid ruux geeriyooday bal anta xayun waad nooshahay buu yidhi wa qaabiilu shaqiyu doqonkii ku dilay gacanta kula tegey huwa ariixu kan dhintay maanta adduunyada waa isaga calayhi asakhtu min rabbi albaraayaa caradii ilaahay dushiisa ha ku dhacdo wa anta calayka tasliimun sariixun badbaado iyo nabadgelyo dushaada ha ahaato sidaa ayuu ku calaacalay nebi aadam wiilkiisa marka la dilay markuu calaacalay kadib baa shicirkii labaadoo jawaabta waxaa u tiriyey ibliis oo meel ka dhow nebi aadam taaganaa baroordiiqiisana maqlayey wuxuu yidhi tanuuxu waad qaylinaysaa cala albilaadi
magaalooyinka ayaad ku qaylinaysaa waman calayha iyo ciddi dul saaran baad u qaylinaysaa wafi lfirdowsi jannadina qad daaqa bika alfasiixu cidhiiri kugu soo noqotay jannaduna cidhiiri bay kugu soo noqoto adii ilmahaagoo janno ku jiro ayaad ku soo noolaan weysay wa kunta bihaa janno ayaad ku nooleed firdowso wasawjika iyo wiilkaaga iyo wasawjika xaaskaaga fii naciimin barwaaqo ayaad ku sugnaadeen min almawlaa allaha idin abuurta uu idin siiyey wa qalbuka mustariixun qalbigaagana wuxuu ahaa qalbi raaxaysanaya khadactuka aniga ayaa ku khayaamay fii dahaa'ii maskaxdaydii ayaan kugu khayaamay uma makrii dhagartayda beenta aheedun kugu dhaartay baan kugu khiyaamay ilaa an faataka alcayshu arashiixu noloshii barwaaqada badneed ee jannada ilaa ay kaa soo gudubtay